qalbiga oo daciifa. Qalbigaaga waa sida bateri oo kale, mararka qaar waa full charger oo wuxuu leeyahay iimaan xoogan, ku sugnaansho cibaado. Mararka qaarna waa low battery, waa uu daciifa, iimaankiisa ayaa hoos u dhacaya, waxaana keenayo dembiyada mar walba uu ku dhadhacayo qalbiga. Mar walba waxaa loo baahan yahay in qalbigeena ilaalino oo aan iimaan xoogan ku jaajar gareyn. Waxyaalaha lagu jaajar gareyn karo qalbiga, kow, salaada ayaa ka mid ah, qur-aanka akhrintiisa iyo dhikriga Allah subxaanahu wa tacaala. laakiin haddii aad ka fogaato, qalbigaagu wuu qalalaa, iimaankana wuu daciifa. markastoo aan ka fogaano cibaadada oo aan ka fogaano qur-aanka, aan ka fogaano dhikriga Allah subxaanahu wa tacaala, iimaankeena ayaa daciifaya, qalbigeenana markaasi waa u dhimanaya. waxa qofka biniaadanka uu ku socdo oo nolosha u hagaya waa qalbiga. dembiyada yaryar, dad badan waxay u malaynayaan inuu dembiga yarka wax iska caadi yahay uusan wax weyn ahayn, laakiin runta waxa waaye dembiyada yaryar ayaa isu biira oo noqda wax weyn. markii dembiga yar dembi kale lagu daro ugu dambeyn waxay noqdaan wax weyn, dembi aad u weyn ayay noqonayaan. indhaha waxyaabo khaldan bay arkaan mar walba, dhagaha waxyaabo badan ayaa lagu dhageystaa oo xun, carabka been iyo barbagaando iyo hadalla xun iyo gaf ayuu ku hadlaa. waxyaalahaas waxay sameeyaan qalbiga ayay madoobeeyaan, iimaankana hoos ayuu u dhacaa. hadduu mar qalbigaaga oo madoobaado, iimaankan hoos u dhaco, maxaa xala? ka toobadkeen si degdeg ah, ka fogow waxyaalaha dhibaatada ku keena iyo fitanka iyo qalbiga madoobeedka u keena. mar walba aad ka fogaatid waxyaalahaas, qalbigana iimaankiisa ayaa xoogaysanaya. toobadana waa waxyaalaha qalbiga lagu nadiifiyo. mar walbo qalad iyo dembi naga dhaco, qalbiga dhibic madow ayaa ku dhacda. haddii aan laga toobad keeninna way sii badataa dhibicda, laakiin markaad ka toobad keentid, madowgaasoo idil waa uu ka tirtirmaya qalbigana wuxuu noqonayaa mid nadiif ah. saaxiib aan kuu fiicnayn, haddii aad la joogtid dad aan tukan, kaftankooda xun yahay, waqtigooda lumiya, si tartiiba ayaad ugu ekaanaysa ayaga. qof walbana qofka uu la saaxiibo ayuu noqodaa. iska fiiri dadka aad la saaxiibaysid, hadday noqdaan dad xun, adna ugu dambeyn waxaad noqonaysaa qof xun. haddii dad wanaagsan yihiinna, dhanka wanaagsan ay ku jiidi doonaan. qof walba qofka uu la saaxiibo ayuu ku dabeecad iyo dhaqan noqonaya. raadso asxaab wanaagsan oo ku jiida dhanka dad iimaan leh oo wanaagga ku dadaalo. xasuus la-aanta aakhiro, waxyaalaha ugu badan oo asbaabaha ugu waaweyn oo noo keenay inaan iimaankeena daciif waxaa ka mid ah inaan ilowno aakhiro, inaan hilmaano geerida. markastoo aan ku mashquulno adduunyada, aan ku mashquulno hantida, aan ku mashquulno noloshan iyo arrimaheeda, waxaa mar walba aan hilmaannaa aakhiro iyo xasuusteeda. mar walba qofka hadduu aakhiro iyo geeri uusan xasuusan, waxaa la weynaanaysa adduunka. mar haddii adduunka ay la weynaatana, qofka qalbigiisii ayaa dhimanaya, qofkii iimaankiisii ayaa daciifaya. xalka wuxuu yahay inaan aakhiro iyo geerida aan xasuusnaano mar walba, inaan akhrino qur-aanka, inaynu ka fikirno nolosha dhabta ah ee dambe. joogtayn la-aan, waxaad samaysaa wax fiican laakiin ma joogtaysid. tani waa qaladka ugu weyn eenu galno. wax walbo waxay u baahan yihiin joogtayn, camal kastana wuxuu u baahan yahay joogtayn. camalka wanaagiisa iyo qiimihiisa waxaa ku jira waa in la joogteeyo. camalka hadduu xataa yar yahay laakiin la joogteeyo, Allah subxaanahu wa tacaala uu jecel. samee wax wanaagsan, haddana joogteen u dhammaystir. mar walba aad wax joogtaysid, noloshaada ayay horumar iyo iimaan xoogan kuu samaynaysaa. qur-aanka haddaad joogtaysid, iimaan ayaa ku siyaadaya. haddaad salaadaha ilaalisid, iimaan ayaa ku siyaaday. mar walba aad aakhiro xasuusanaato, iimaan baa ku siyaaday. mar walba nolosheena inaanu joogteyno waxyaalaha wanaagsan, aan ku dadaalno, waqti gelino ayaan u baahannahay. waana sababta aan mar walba dib ugu dhacno nolosheena. dhammaanteen waxaan rajaynaynaa inaanu nolol wanaagsan ku noolaano. dhammaanteen waxaan rajaynaynaa inaynu horumarno. dhammaanteen waxaan rajaynaynaa inaynu iimaan xoogan yeelano oo aan aakhiro ku guulaysano nolosheeda. iimaanka ma aha wax mar kaliya la helo, waa wax la ilaaliyo maalin kasta. haddii aad rabto qalbi nool, waa inaad si joogto ah u daryeeshaa. ha sugin inaad noqoto qof wanaagsan hal mar, laakiin kaliya bilow oo sii wad dadaalka. ugu dambeyn waxaad yeelan doontaa qof wanaagsan ayaad noqon doontaa oo iimaan xoogan leh. ilaahay waxaan ka baryaynaa dhammaanteen inuu na siiyo iimaan, qalbigeenana uu wanaajiyo. qalbiga baniaadankana waxa uu ku jiraa gacmaha ilaahay subxaana wa tacaala. mar walba sidoo doon u gadgadiyaa inuu ilaahay qalbigeena iimaan iyo diinka ku sugo ayaan ilaah weydiisanaynaa. haddii aad rabto iimaan xoogan iyo nolol wanaagsan, channelka subscribe saar, commentiga ku qor iimaan. mahadsanid.